marka insha Allah ta'ala soonkana ma aha cunto iyo cabitaan laga soomo bas ma aha soonka dhabta ah sida nabiga sheegay sallallahu alayhi wasallam in laga soomo way qawlu zuur beenta khiyaanada aflagaadada in laga soomo way soonka dhabta ah nabiga wuxuu yiri alayhi salatu wasalaam man lam yada' qawla zuur wal amal bi falaysa lillahi haja fi an yada' ta'amahu wa sharabahu qofkii beenta iyo marxaati beenada iyo hadallada xun qawlu zuurka qofkan iska dhaafay ilaahi dan imuraad kama laha liiri cuntadiisa cabitaanka uu iska dhaafay ilaahi dan imuraad kama laha marka soonka dhabta ah waa inay marka jawaarixdaad xibnahaad ay soomaan indhahaada xaaraanta ka celisa haddii indhahaada waa soomana inaad tiraahdo indhahaada xaaraan ku fiirinaysid oo maanta dhan aad ku jirto youtube iyo maarta maxaa la yidhahdaa wixii oo maarta dhalinyarada ku rafaadi jireen aad maanta dhan waqti ku dhammaynaysid naaga qaqaawan iyo waxyaalahan aad fiirinaysid waana soomanaad leedahay waxa soon ma aha bilaasha cuntada raashinka iyo cabitaanka u dhaaftay moowi soonka dhabta ah waa midka xaaraanta iyo dembiga laga soomaya kaasa dhab ah marka insha Allah ta'ala soonka yaa naga halaawin dhalinyarada hadaan nahay dhalinyarada hadaa tihiin dadaala bishaan ka faa'iideysta fursad way inay ku soo marayso in kala Allahu a'lam dadkii hore nala soomay oo aad tageen oo dhinteen ya ilaahay uma qorin maanta inay soo gaaraan ya anaka ilaahay wana soo gaarsi marka inaan ka faa'iideysan ayaa loo baahan yahay fursadan qaaliga ah wax walba aad samayso lallabay quraanka akhri masaajidaha ku nagaaw insha Allah ta'ala waxaan idin rajaynaynaa muslimiinta meel ay joogaan in ilaahay subhanahu wa ta'ala soonkiisna ilaahay nabad nagu gaarsiiyo camalkeena mid khaalis liwajhi Illaahi al-kariim in ilaahay ka dhigo midnimo iyo muwaafaqana ilaahay inuu nasiiyo